Soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan aynu ku bilownayo sheekada ugu horeysa barnaamijka caawa. Kuuriyada Koonfureed ayaa dhaqdhaqaaq militari waxa ay ka bilowday jasiiradda Kuuriya iyadoo ballaarinaysa si looga hortago hanjabaadaha iyo goodinta Pyongyang uga yimaada. Seoul waxay qorsheynaysaa fulinta habab kala duwan oo ay ku xoojinayso islamarkaana ku adkeynayso difaacadeeda iyo awoodaheeda militari ee iska caabin. Kuuriyada Koonfureed ayaa si cad waxay u sheegtay inay dardar gelinayso qorshe ay ku doonayso inay ku hesho 10,000 oo diyaaradaha duuliyaha lahayn si ay uga hortagto hanjabaadaha Kuuriyada Waqooyi iyadoo casharo ka qaadanaysa dagaalada ka socda Ukraine iyo Bariga Dhexe. Labada Kuuriya qaab ahaan weli waxay ku jiraan xaalad dagaal maadaama colaadii dhex martay intii u dhaxaysay sanadihii 1950 ilaa 53 ay ku dhamaatay heshiis xabad joojin ah halkii ay kaga dhammaan lahayd heshiis nabadeed oo rasmi ah taasi oo horseeday in lagu jiro xaalado feejignaan ah. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee bariga qaaradda Yurub gaar ahaan dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyo Bariga Dhexe waxay si cad u muujiyeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay noqdeen hub go'aamiyey natiijada dagaalka ee goobta dagaalka ayuu yiri wasiirka Kuuriyada Koonfureed An Gwi-Bak oo mar uu la hadlayay warbaahinta gudaha ee magaalada Seoul. Isagoo hadalkiisa sii raaciyay Kuuriyada Waqooyi waxay sii wadaa soo saarista noocyo kala duwan oo awoodaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn taasi oo sii kordhinaysa hanjabaadaha aan keliya ku wajahnayn xarumaha militari ee Kuuriyada Koonfureed balse sidoo kale ka dhanka ah kaabayaasha muhiimka ah ee qaranka iyo bartilmaameedyada rayidka. Fulinta qorshaha soo saarista 60,000 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Seoul ay filayso inay bilowdo dardargelintiisa. Wasiir An Gwi-Bak ayaa tilmaamay in militarigu uu qorsheynayo inuu soo saaro 110,000 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn marka la gaaro sanadka 2029 si loogu qaybiyo dhammaan cutubada ciidamada dhulka, badda, cirka iyo ciidamada badda ee Mariniska. Hase yeeshee wasaaradda difaacu markii dambe waxay dib u eegis ku samaysay tiradaasi iyadoo ka dhigtay qiyaastii 60,000 oo diyaarad ah iyadoo qorshuhu uu yahay in ku dhawaad 11,000 oo ka mid ah la howlgeliyo dhamaadka sanadkan 2026. Wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in hababkan loo qaybin doono qaybaha kala duwan ee ciidamada iyadoo ujeedadu ay tahay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay noqdaan qayb lagama maarmaan u ah askari kasta oo Kuuriyada Koonfureed u dhashay. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaana sidoo kale sharaxday in dowladdu ay dadaal u geli doonto sidii si degdeg ah adeegan loogu howlgelin lahaa islamarkaana nidaamka diyaaradaha ee weerarka fog ee Kuuriyada lagu sameeyey ee loo yaqaano Lucas kaasi oo la mid ah nidaamka Mareykanka ee Lucas kaasi oo asal ahaan laga soo minguuriyey diyaaradda weerarka iyo ismiidaaminta Iiraan ee shaheed loo hirgelin lahaa. Militarigu wuxuu sidoo kale damacsan yahay inuu helo in ka badan 20,000 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo qiimo jaban hal marna la isticmaali karaa ayuu aan yiri isagoo aan sheegin halka laga heli doono. Diyaaradahan waxaa ka mid ah diyaaradaha sahanka ee masaafada gaaban iyo diyaaradaha yaryar ee weerarka loo yaqaano Loitering Munitions. Ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaana sidoo kale ku shaqayn doona nashqadeynta kooxo diyaaradaha iskood iswada ismiidaamiya oo ku shaqeeya garaadka macmalka ah laga bilaabo sanadka soo socda. Kuuriyada Koonfureed waxay xuduudaheeda ku daabuli doontaa nidaamyo difaac oo cirka ah kuwaasi oo ah ka hortagga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Mustaqbalka fog Seoul waxay qorsheynaysaa inay keedkeeda hubka ku soo darto hub laga hago oo tamar ku shaqeeya sida nidaamyada ku salaysan laysarka iyo heerarka microwave-ka ee tamarta sare leh iyo sidoo kale diyaaradaha joojiya kuwa kale ee qiimaha jaban ku kacaya ayuu yiri wasiir An. Dhanka kalena wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa mar kale waxay ku celisay inay qorsheynayso tababarka 500,000 oo askari kuwaasi oo aqoon u leh shaqada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn islamarkaana awood u leh inay diyaaradahaasi u adeegsadaan hub labaad oo kale. Taliska howlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kuuriyada Koonfureed oo la aasaasay sanadkii 2023 ayaa dib loogu habeyn doonaa talis cusub oo difaaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay sheegtay wasaaraddu. Hoggaanka taliskaasi ayaana la kulmay dhaleecayn kadib howlgal diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga fuliyey magaalada Pyongyang bishii Oktoobar ee sanadkii 2024 ilaa madaxweyne ka ahaa dalka Yoon Suk Yeol
isagoo oo markii dambe lagu xukumay 30 sano oo xabsi ah howlgalkaasi awgiis, kaasi oo lagu eedeeyay in ujeedadiisu ahayd abuurista qalalaasiye si loogu laxaalo isku day lagu soo rogayo dalka xukun military. waa hagaag markan aynu u tallaabno sheekada xigta ee barnaamijka caawa. dalka soo galay booska labaad ee dalalka dhaqaalaha badan ku bixiya dhismaha iyo maalgelinta ciidamada adduunka oo dhan ayaa waxa uu noqday mid ka yaabsaday cilmibaarayaasha, iyadoo dal Afrikaan iyo Carab ah uu soo galay booskaasi. majalada Faransiiska ah ee Le Pen ayaa soo hadal qaaday miisaaniyadda militariga ee wadanka Algeria, iyadoo xustay inay ku dhowdahay in 3 sano ee soo socota ama 3 sano gudahood, islamarkaana ay hadda ka dhigan tahay ku dhawaad kalabar guud ahaan qarashaadka militari ee dalalka Afrika ay ku qarash gareeyaan ciidamadooda militari, sida uu sheegay Machadka Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Nabadda ee Stockholm. Algeria waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee adduunka oo dhan marka loo eego qarashaadka militari, isla markaaba waxay ka dambeysaa Ukraine inkastoo aysan ku jirin dagaal. Si kastaba ahaatee, kororka weyn ee sanadihii lasoo dhaafay ayaa ka yaabiyey khubarada sababo la xiriira baaxadda qarashaadka militari, ayay majaladu tiri. Warbixintii ugu dambeysay ee Machadka Stockholm ee Cilmi-baarista Nabadda oo ciwaankeedu ahaa Hannaanka Qarashaadka Ciidamada ee Adduunka oo dhan ee sanadkii lasoo dhaafay 2025 ayaa waxay muujisay in qarashaadka militari ee Algeria ee sanadka 2025 uu gaaray ku dhawaad 25.4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, halkii uu ka ahaa sanadkii 2022 keliya 9.1 bilyan oo doolar, waxaana uu kordhay 76% sanadkii 2023 isagoo gaaray 18.3 bilyan oo doolar, kadibna sii kordhay ilaa 21.8 sanadkii 2024, iyadoo kii ugu dambeeyay ee 2025 uu gaaray 25.4 bilyan oo doolar. qarashaadka militari Algeria waxa uu ku dhow yahay inuu 3 laabmo 3 sano gudahood tan iyo markii madaxweyne Cabdilmajiid Tebboune uu xoojiyay awoodiisa kadib doorashadii 12 Diseembar ee sanadkii 2019 iyo dib doorashadiisii 7 bishii Sebteembar 2024. dhaqdhaqaaqan waxaa sidoo kale lagu arkaa marka loo eego saamiga qarashaadka ee GDP-ga dalka. sanadka 2025 tiradani waxay gaartay 8.8%, taasi oo Algeria ka dhigaysa dalka labaad ee ugu sarreeya adduunka oo dhan marka loo eego culayska militari, iyadoo ka dambeysa Ukraine oo 40%, islamarkaana ka horeysa Israa'iil oo 7.8%. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in qarashaadka militari uu ka dhigan yahay 25% guud ahaan qarashaadka dowladda, taasi oo ah tan labaad ee ugu sarreysa adduunka kadib Ukraine. qaaradda Afrika, xogtu waxay muujinaysaa tiradani inay ku dhowdahay kalabar guud ahaan qarashaadka militari ee dalalka Afrika uu gaarayo 58.2 bilyan oo doolar, korodhan 8.5% marka loo eego sanadkii hore, isla markaana ah kororkii saddexaad ee xiga. sida uu sheegay warsidaha Le Pen ee Faransiiska, khubaradu waxay aaminsan yihiin in sababaha kordhinta qarashaadka militari ee Algeria ay ka mid yihiin xiisadaha joogtada ah ee kala dhexeeya Morocco, siyaasadda dibadda ee sii adkaanaysa tan iyo markii Tebboune uu xukunka yimid, iyo sidoo kale xaaladda amni ee sii xumaanaysa ee gobolka Saaxil, halkaasoo Algeria ay saameyn ku lahayd dalalka sida Mali iyo Niger. waxaa sidoo kale jira arrin gudaha ah oo la xiriirta madaxweyne Tebboune, maadaama uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Algeria ee si toos ah ula xiriirin halgankii madax-bannaanida, taasi oo laga yaabo inay ku riixdo inuu xoojiyo doorka ciidamada si uu u helo sharciyad siyaasadeed. Morocco oo ay kala dhexayso xifaaltan goboleed ayaa si aad u qarash yar waxay ku qarash gareysaa militarigeeda, inkastoo uu kor u socdo qarashkeeduna wuxuu ahaa 6.3 bilyan oo doolar sanadkii 2025, iyadoo 5.5 bilyan uu ahaa sanadkii 2024. si kastaba, farqigu weli waa uu weyn yahay, iyadoo Algeria ay ku dhawaad 4 jibaar ka badan tahay qarashaadka Morocco ay ku bixiso adeegga militari. si loo fahmo kororkan, Algeria ma arag koror sidani oo kale ah tan iyo dagaalkii 1973 ee bishii Oktoobar, markaasi oo qarashaadka ay si weyn u kordheen sababo la xiriira xiisado goboleed iyo sidoo kale saameyntii Green March ee Morocco ee 1975 oo Algeria ay u aragtay hanjabaad. khilaafka ku saabsan Saxaraha Galbeed ayaa weli ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee xiisadda labada dal, sida lagu xaqiijiyay warbixinta Machadka, taasi oo sheegtay in khilaafkani uu si weyn u sharaxayo kororka qarashaadka militari ee Algeria iyo Morocco labadaba.
sanadka 2026 Algeria waxa ay hordhac ahaan u qoondeysay miisaaniyad militari oo dhan 24.6 bilyan oo dollar iyadoo la filayo inuu sii kordhaan qarashkaasi waxaana saameyn weyn uu ku leeyahay miisaaniyadda guud ee dalka isagoo si aad u sareeya kaga badan waaxyaha sida caafimaadka oo loo qoondeeyay miisaaniyad 6.8 bilyan oo dollar in lagu bixiyo iyo waxbarashada oo 13.7 bilyan oo dollar iyadoo dalkan ay ku nool yihiin ku dhawaad 46 milyan oo qof. waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socota warbixin ku saabsan Israa'iil oo hirar diidmo nabadeed ah ay u muuqato inay ka bilowdeen kadib mucaaradka oo diiday heshiis ay wada gaareen Lebanon iyo Israa'iil inkastoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in qaybo ka mid ah heshiiska waxa uu dhigayo aanay fulin karin oo ay suurtagal ahayn. waan eegi doonaa warbixintaasi balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin ah. markan aynu sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka caawa eegno heshiiska cusub ee u dhexeeya Beirut iyo Tel Aviv ee la gaaray si loo soo afjaro xaaladda koonfurta Lebanon iyo waqooyiga Israa'iil ka socota ayay ka hor yimaadeen xubnaha mucaaradka Israa'iil iyagoo sheegay inuusan ka hortegi doonin inuu qarxo iska horimaad cusub oo u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kale xogaga Hezbollah iyo soo noqoshada dagaal kale oo lala galo. hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil ee xisbiga Israel Beitenu hogaamiye Victor Lieberman waxa uu ku doodayaa in heshiiska qaab dhismeedka ah ee kala saxiixdeen Israa'iil iyo Lebanon kaasi oo Mareykanku garwadeenka ka ah uusan marnaba ka hortegi doonin inuu qarxo dagaal cusub oo ay la galaan Hezbollah. Lieberman waxa uu arkay iskoormaadka soo socda ee lala gali doono Hezbollah inuu yahay arrin waqti uuna ku xiran oo in yar u baahan. qoraal uu ku baahiyay akoonkiisa baraha bulshada ee gaarka ayuu Lieberman waxa uu ku sheegay inuu soo dhaweynayo saxiixa heshiiska ay sameeyeen wakiilada rasmiga ah Israa'iil iyo sidoo kale Lebanon. si kastaba waxa uu ku dooday in xoogga sii socda ee Hezbollah oo maalinta ka dambeysa sii kordhaya oo sii xoogeysanaya uu ka dhigayo iska hormaad xiga oo la galo Hezbollah arrin waqti uuna ku xiran. waxaana intaasi ku daray in danaha guud ee Israa'iil iyo Lebanon ay tahay in dowladda Lebanon ay ku fidiso madaxbannaanideeda buuxda dhammaan dhulka dalkeeda uu ka kooban yahay. Lieberman waxa uu ku andacooday in gaaritaanka arrintan ay u baahan tahay in la tirtiro Hezbollah jiritaankeeda. Horaantii Jimcaha madaxweynaha Lebanon Joseph Aoun ayaa bayaan waxa uu soo saaray waxa uu ku sheegay in heshiisku yahay tallaabadii ugu horeysay ee lagu soo celinayo madaxbannaanida Lebanon ee dhammaan dhulkeeda oo dhan iyadoo aan waxba laga dhimin qaybna aan laga tegin. dhanka kalena xildhibaanka Hezbollah ku matala baarlamaanka wadanka Lebanon Xasan Fadlallah ayaa war-saxaafadeedyo u bixiyay waxa uu ku sheegay in heshiiska uu yahay hadiyad la siiyey cadowgooda Israa'iil. Fadlallah waxa uu sheegay in mucaaradka xisbiga uu ku hayo heshiis uu yahay mid dhab ah oo culus waxaana carabka uu ku adkeeyey inuu ka dhagan yihiin ikhtiyaaraadka hubka. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhanka kale khudbad muuqaal ah oo laga duubay waxa uu ku sheegay in Israa'iil aysan marnaba ka bixi doonin aagga loogu yaro amniga ilaa inta Hezbollah laga dhigayo hubka ay haysato oo laga baabi'inayo iyo ilaa inta ay jirto hanjabaad ku wajahan amniga Israa'iil. Netanyahu waxa uu taasi ku daray in heshiisku u ogolaanayo ciidanka Lebanon inay bilaabaan inay isku fidiyaan deegaano gaar ah iyadoo oo lagu saleynayo tirada ciidanka Israa'iil laga helayo xilli fulinta qorshahaasi ay ka bilaaban doonto 2 aag oo tijaabo lagu sameyn doono. heshiiskan ayaa yimid gabagabadii wareegga shanaad ee wadahadallada u dhexeeya Beirut iyo Tel Aviv ee lagu soo afjarayo colaadda ka socota koonfurta Lebanon kuwaasi oo ay martigelineysay Washington isla markaana diiradda lagu saarayay ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee qaybaha ay kaga sugan yihiin dhulka Lebanon ay ka haysato iyo sidoo kale habeynta lagu sameynayo ama ku saabsan sida ciidamada Lebanon ay halkaasi loogu daabuli lahaa oo ay gacanta ugu dhigi lahayd koonfurta Lebanon oo inta badan loo yahay in Hezbollah ay ku xoogan tahay iyadoo Israa'iilna ay ku adkeysanayso si ay u fuliso qodobka ku saabsan in dhulka Lebanon ay ka baxdo ay ku xirtay in Hezbollah laga dhigo hubka. waa hagaag intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka maxaa cusub oon ku eegeynay xaaladihii ugu dambeeyay ee dunida. Si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xidhiidhnina nagu soo biira. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.